kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta wararka warbixinada diblomaasiyadda maqal media group qodobada waaweyn warka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Russia Vladimir Putin ayaa ugu hanjabay dalalka reer galbeedka inay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo ballaaran dandaansiga dalkiisa. madaxweynaha Russia Vladimir Putin asoo ka hadlayay kriminalka wadanka Ruushka looga arrimiyo ayuu sheegay inuu dalkiisa uu mar waliba u isha ku hayo dhaqdhaqaaqa foosha xun ee dalalka reer galbeedka. Ruushka ayaa 10 bilood dagaal weyn uga jira iyo howlgal military dalka Ukraine. madaxweyne Putin ayaa ku nuuxnuuxsaday inuu dalkiisu uusan ka tanaasuli doonin wuxuu ku sifiyay qadiyadda isdifaacidda iyo ka fogeynta adowga meelaha u dhow Ruushka. madaxweynaha Russia ayaa hadalkiisa sii wata ayaa sheegay dalalka reer galbeedka Britain iyo Mareykanka inay yihiin kuwa dhibaato u soo jiida dalalka dunida aan wax weyn aan ka geysan, taasoo soo qaadanaya wadanka Ruushka. howlgalkiisa military ee baaxadda weyn oo ka wado wadanka Ukraine ayaa u muuqda inuu ku daba dheeraaday. madaxweyne Putin ayaa sheegay howlgalka sida ay Russia ugu tala gashay inuu u socdo iyadoo goorkii uu dagaalka bilaabayay madaxweynaha wadanka Russia Vladimir Putin uu sheegay inay muddo kooban ay kusoo gabagabay doonaan taas waxaa ka dhalatay inay ku daba dheeraato howlgalka uu Ruushku ka wado wadanka Ukraine. dalalka NATO ee reer galbeedku ay horboodayaan ayaa taageero baahan u fidiyay wadanka Ukraine. madaxweynaha awoodda badan ee wadanka Ruushka ayaa amar ku siiyay ciidamadiisa diyaaradaha iyo kuwa gantaalada Brazoniga inay duqeeyaan kaabayaasha dhaqaalaha ee waaweyn ee wadankaas Ukraine. Putin ayaa wada howlgalkiisa military lama oga sheerka ay soo gabagaboobayso howlgalkan oo ku sheegay cadowga wadanka Ruushka ee caasha soo dhiganaya meelaha u dhow amba xuduudaha wadanka Ruushka. madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa reer galbeedka gacan buuxda ka siiyeen dagaalka sida uu ku sii wadi lahay. Ukraine ayaa u muuqata mid gabi ahaanba kaabayaasha weyn ee dhaqaalaha jilbaha dhulka loogu dhiftay kadib duqeynta diyaaradaha hoolan ee dalka Ruushka ay hawada ka duqeynayaan. madaxweyne Putin go'aankiisa lama oga oo ah in uu sii socdo howlgalka ka dhanka dowladda wadankaas Ukraine. dalalka gaashaanbuurta NATO ayaa garab istaag ballaaran u sameeyay dalkaas Ukraine iyadoo Mareykanku uu horboodayo dalalka dhaqaalaha iyo hubka casriga ku daabulaya wadankaas Ukraine. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky maruu tagay Washington oo kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa madaxweyne Biden u ballan qaaday dhaqaalihii ebed ugu badnay ee dalka Ukraine lagu taageerayo. dalalka reer galbeedka ayaa gabi ahaantoodba ahaa jiray dalka Ruushka kuwa ka iibsada shidaalka qiimo jabanna uu ku siiyo. reer galbeedka ayaa baraf ballaaran oo aad u xooggan oo ka dhaca bilahan taasoo la sheegaya inuu shidaalka amba gaaska dabiiciga uu yahay mid aad u qaaliya, taasoo sababtay dalka Ruushka oo jaray gabi ahaanba inuu ka iibiyo gaaska dabiiciga ee dalalka reer galbeedka ay sida badan ay ku nool yihiin. madaxweynaha Mareykanka ayaa u ballan qaaday European Union inuu ka taageeri doono amba uu dalkiisu soo fasaxi doono shidaalka u badnay, taasoo halka shidaalka Mareykanka uu yahay mid aad u lacagta kan Ruushka ka lacag badan sida la sheegayo. Yurub ayaa u muuqata mid dhaqaale ahaan sii liidanayso dagaalka tan iyo 10 bilood oo dagaalka sida foolka uu socday. madaxweynaha Mareykanka ayaa la sheegay inuu gacan gali doono Ukraine gantaalaha hawada sare aadka wax u ilaaliya ee Patriot. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in gantaaladan hawada sare ay sii doonto xukuumadda Kiev si uu sii wado dagaalka ka dhanka ah dowladda wadankaas Russia oo kusoo duushay gudaha dalka Ukraine. gaashaanbuurta NATO ayaa wadnaha farta kaga haysa in ay Ruushka uu ka dhigo dagaal weyne saddexaad oo dunida ka dhaca.
kadib markuu ruushku in badan ku hanjabay inuu dalalka qaar uu ka qaadi karo tilaabo military taasoo cabsi weyn soo wajahday. NATO ayaa sheegtay inay iska difaaci doonto dalka Russia oo daandaansigiisu yahay mid weyn oo dalalka madax banaanida iyo sharafta dunida halis ku ah. Xogayaha arrimaha dibadda dalka Russia Sergey Lavrov oo muddo 42 sano ka shaqeynaya arrimaha diblomaasiyadda ayaa sheegay wadamada Westernka oo Mareykanku horboodayay inay doonayaan inay Ruushka jilbaha dhulka ugu dhiftaan, taasoo uu sheegay inaysan taariikhdu qori doonin in Russia la burburiyo sida uu hadalka u dhigay. Sergey Lavrov ayaa la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay inay iska difaaci doonaan wuxuu ku sifeeyay cadowga weyn ee dalka Ruushka. Russia ayaa iyaduna cunaqabatayn ballaaran jilbaha dhulka ugu dhigeen dalalka reer galbeedka oo meel kastaba ka xiray, taasoo Ruushka ku naqatay dharbaaxyo waaweyn. Reer galbeedka ayaa isku dayay inay tuuteeyaan, balse Ruushka ayaa la loodi la'yahay. Ruushka ayaa dalal badan oo dunida xiriir wanaagsan la sameysanayo, taasoo uu shidaalkiisuna iyo kheyraadkiisa oo hodanka ku yahay oo ku harqinayo dalalka Shiinaha iyo wadamo badan oo Asia ku yaal. Wadamada reer galbeedka ayaa Ruushka u arka cadow soo jireyna oo ka dhanka ah maslaxadda iyo dimuqraadiyadda sida ay sheegaan mar waliba, taasoo xeeldheerayaashu sheegayaan inaysan wax ka jirin been abuurka ee wadamada reer galbeedka ay ku hayaan dunida inta kale. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa in badan ku celcelisay cawaaqib xumada ka dhalan karta tilaabo kasta oo qaado Vladimir Putin, madaxweynaha ama hogaamiyaha awoodda badan ee dalka Russia, oo ku hanjaba mar waliba inuu tilaabo ka qaadi doono dalalka ugu arko cadowga qolkiisa. Taawada warkayna intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Amaano Allah.